kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbaahinta xogta wararka qodobada wararka caalamka iyo Soomaaliya aan idiin haynana waxa kamid ah fadeexad weyn oo haysata dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya taasoo ku aadan baa la yiri qishka imtixaanka dawladda ay qaadayso maanta xilli ku dhawaad 30,000 oo arday ay maanta imtixaankaas u fariisteen beesha caalamka oo ka walaacsan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada fashilka ku yimid shirkii Garowe oo laga cabsi qabay in dawladda mar kale ay dib ugu celiso nidaamkii ku meel gaarka ee dalka uu ku jiray qarax iyo toogasho ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho oo faahfaahin ay ka soo baxayaan magaalada Kismaayo iyo xiisadda siyaasadeed oo aad u sii laba jibaarmaysa xilli Axmed Madoobe uu guul u arko iskhilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada maadaama laga yaabo inuu waqti kororsi sameyn karo magaalada Kismaayona uu ku wajahan yahay maraakiib badbaadiyay muhaajiriin doon ay la qoostay oo la geeyay jasiiradda Malta iyo 4 qof oo afduub ahaan loogu haystay dalka Burkina Faso oo xoog lagu soo furtay waa 11 bisha shanaad ee May 2019 saaxiibayaal daawadayaal ku soo dhawaada intii aad maqasheen qodobada wararka ugu waaweyn ay ahaayeen warbaahinta xogta wararka ayada naga daawanaysaan iyaga oo bandhigana ku soo durka aan ku bilowno wararka kooban ee aanu helinay ay sheegayeen qarax xoog leh oo maanta barqadii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland halkaas oo la sheegay in weerar lagu qaaday gaari uu leeyahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee xarunta gobolka Bari gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari garyaqaan Abuukar Cabdinaasir qaraxan ayaa ka dhacay afaafka hore ee maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari ee magaalada Boosaaso waxaana la sheegay 5 qof oo shicib iyo ciidan ilaalo u ahaa gudoomiyaha waxay la dhaawacay soo gaareen warar kale ayaa sheegay in qaraxa uu ku dhaawacmay mid kamid ah taliyaha ilaalada maxkamadda ciidamada iyo shaqaale ka tirsan maxkamadda kuwaas oo qaarkood halis lagu sheegay dhaawacooda inuu yahay gudoomiyaha la weeraray gaarigiisa ayaa ku sugan hadda magaalada Garowe oo gobolka Bari waaba uu ka maqan yahay ma jirto faahfaahin kale oo arintaas laga helay magaalada Garowe caasimadda Puntland shirkii ka socday 6 cishana qaatay ayaa lagu kala tagay iyadoo madaxda aysan isku faraxsanayn shirkan natiijo aan lagu gaarin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka xumaaday mas'uuliyiinta qaarkood ee shirka ka qayb galay iyo sida ay hal adeeg uga dhigteen qodobada qaar ee ka soo laabashada laga filayay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland ayaa hordhigay dawladda federaalka qorshe uu ka doonayo oo ahaa in la soo faragelin doorashada ka dhacaysa maamulkiisa dhamaadka sanadkan halka dawladda dhexena ay doonayso in meesha ay ka saarto Axmed Islaam Madoobe oo ku adkeysanaya in la raaco habraac ka duwan kan uu u soo jeediyay ee galaangalka muuqda siinaya beesha caalamka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka warar la helay ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland uu dadaal ku bixiyay sidii uu ugu qancin lahaa saaxiibkiisa Axmed Madoobe inuu ka tanaasulo qodobkaas maadaama go'aanka ugu dambeeyay ee doorashadaas ay leeyihiin dadka deegaanka isagoona tusaale u soo qaatay doorashadii ka dhacday Puntland bishii Janaayo ee sanadkan Axmed Madoobe ayaa mowqifkiisa si cad u dul istaagay aragtidiisana iyo soo jeedintii uu muujiyena waxa ay ka dhex dhalisay dood kale oo keentay in arinta Galmudug laga soo weeciyo oo Jubbaland buuqaas uu abuuray Axmed Madoobe ayaa markii hore ka caraysnaa faragelin uu rumaysnaa in dawladda dhexe ay ku sameynayso doorashada Jubbaland waxaase shirka uu ka baxay markii ilaalada murashax Cabdinaasir Seeraar iyo ciidamada Jubbaland ay isku rasaaseeyeen garoonka Kismaayo isagoo dawladda ku eedeeyay inay mas'uul ka tahay arintaas Khamiistii ayaana mashaqadaas ee dhacday mas'uuliyiin lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegeen wada hadallada socday in uu tilmaamay mowqif ahaan Axmed Madoobe inuusan ka soo laaban doonin taas oo ay sidoo kale dawladda ku noqotay bawdar rageed maalinba mid baaqaawan oo loola jeedo hadba dhinac ayaa ay xaajada iyo xaaladda kaga cakirmaysay xaaf ayaa markii hore dawladda ka diiday muddo kordhin 1 sano ah taas uu dalbaday 3 sano in looga dhigo ilaa 2021 dhamaadkeedana uu xilka banayn doono
waxaa hadda bilaaban doona dagaal adag oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada Jubbaland iyo Galmudug waxaana wararku ay sheegayaan in madaxda dowladda dhexe ay ka go'an tahay in meesha ay ka saaraan labada Axmed ee Galmudug iyo Jubbaland kala hogaamiye inkastoo labaduba ay iyaguna sheegayaan in ay dhiigooda iyo dheecaankoodaba ku bixinayaan difaacidda kursiga ay hadda ku fadhiyaan beesha caalamka ayaa ka walacsan khilaafka soo cusboonaaday ee ka dhex jira dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaana ay ka baqanayaan in xaaladdu ay meel halisa gaadho ila diblomaasiyadeed ayaa ku waramaya in dowladda dhexe haddii aysan madax dhiibasho iyo weliba aysan isku loogin dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaa suurtagal ah in nidaamkii kumeel gaarka ay beesha caalamka dib ugu celiyaan Soomaaliya taas oo aan sahli karin in heshiisyo caalamiya ay galaan dowlad kumeel gaara iyaga oo ah hadda dowladda Soomaaliya waa dowlad la aqoonsan yahay oo caalamka heshiisyo la gali karta balse sida hadda ay wax u socdaan beesha caalamka waxay ka muujisay walaac iyo weliba walbahaar xubno ka tirsan beesha caalamka waxa ay sheegeen in dowladda dhexe looga baahan yahay siyaasad hufnaan iyo weliba tanaasul ku dheehan iyada oo la doonayo in aysan meesha ka saarin in iyada ay leedahay go'aanada ugu dambeeya ee xukunka dalka haddana waa lagama maarmaan nidaamka federaalka ku dhismay in lagu taageero oo maamul goboleedyada wax tabashadooda laga qanciyo Donald Yamamoto waa safiirka Mareykanka u jooga magaalada Muqdisho waxa uu dhawaan la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta shirka la isku mari weysanaa magaalada Garowe uu ka socday waxa uu ka dalbaday in dowladda dhexe laga baahan yahay in isbedel muuqda ay la timaado inkastoo hadda la leeyahay fashilka ku yimid waxaa laga yaabaa in kumeel gaarnimadii dalka dib loogu celiyo dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed 2012 marka xilka uu baneynayay ayaa waxa ay Soomaaliya ka baxday nidaamkii kumeel gaarka waxaana laga cabsi qabaa 7 sano kadib in kumeel gaarkii lagu laabto waa hagaaga muuqaal baahiyaha xogta wararka ayada naga daawanaysan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday oo loo fariistay imtixaanka dowladda ay qaadayso waxaana lagu wadaa in ardayda dugsiyada sare ay fariistaan imtixaanka dowladda ee shahaadiga in ka badan 30,000 oo arday ayaana maanta waxa ay u fariisteen imtixaankaas oo ay dowladda qaadayso iyadoo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya kol hore uu ku dhawaaqay goobaha imtixaanaadka lagu galayo ayaa waxaa jimcihii shalay ahayd la wareegay ciidamo loogu talagalay in amniga ay sugaan xarumahaasi mas'uuliin ka tirsan dowladda ayaana tagay goobaha qaarkood ee imtixaanka uu ka socdo imtixaanka ayaa si rasmi ah maanta kaga bilowday gobolka Banaadir deegaanada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland mana jirto dhinaca Puntland imtixaankaasi laga galayay maadaama kol hore ay wasaaradda waxbarashada iyo Puntland ay iskhilaafeen laguna kala tagay imtixaankaas inaysan ardayda Puntland galaynin ay kol hore ku dhawaaqeen dhinaca kale fadeexad weyn ayaa haysata wasaaradda waxbarashada maadaama qishka imtixaanka la helay oo baraha bulshada la soo galiyay saacada ka hor inta imtixaanka aan maanta loo fariisan waa ceeb iyo fadeexad kale oo dowladdu ay wajahayso maadaama aanay u xafidaysanayn waxyaabaha ay qarinayso sida imtixaanaadka iyo weliba saxiixiyada oo mararka qaarkood la arko in dad gaar ah ay heli karaan si fudud weerar siyaabooyin kala duwan uga dhacay habeennimadii xalay magaalada Muqdisho waxaa la soo sheegayaa in ay amniga qalqal geliyeen weerarada ayaa waxa ay ahaayeen kuwa siyaabooyin kala duwan uga dhacay gudaha Muqdisho iyo deegaanada duleedka ah koox hubaysan oo aan heybtooda la garan ayaa waxa ay dil ka geysteen isgoyska Boondheere ee magaalada Muqdisho waxaana ay dileen oo ay qaarajiyeen wiil dhalinyaro ah wiilka la dilay ayaana ilaa hadda la ogeyn sababta loo beegsaday si weyn ayaana deegaanka looga yaqaanay waxaana uu ka mid ahaa dhalinyarada xaafadda iyadoona dilka kadib kooxda bistooladaha watay ay goobta ka baxsadeen sidaasoo kale habeennimadii xalay bamgacmeed ayaa lagu weeraray maqaaxi ku taalla tabeelaha Sheekh Ibraahim halkaas oo dad soo barakacay ay degan yihiin waxaana weerarkaas ka dhashay dad ku dhaawacmay oo tiradooda aan la sheegin oo maqaayadana ku sugnaa xarumo caafimaad oo ku yaala deegaanka tabeelaha Sheekh Ibraahim ayaa dhaawacyada loola cararay
koox hubaysan oo gaari watay ayaa iyagana waxaa bam la dhigay dhinaca wadada agagaarka xarunta CID ee magaalada Muqdisho uu ku qarxay waxaana markii bamkaas uu qarxay kadib waxyeello kala duwan ay soo gaartay dad rayidah oo goobta ku sugnaa waa weeraradii ugu badnaa tan iyo bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaanta ee lagu qaado gudaha magaalada Muqdisho xilli ciidamo loo diyaariyay sugidda amniga ay magaalada Muqdisho sugayaan markana Kismaayo wararka ugu dambeeyay naga soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa sheegay in diyaaradu la socday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay gaadhay magaaladaasi si weyn ayana loo soo dhaweeyay Axmed Madoobe ayaa ka biidiidanaa faragelinta filla Soomaaliya ee Jubbaland iyo qasaaraha ka dhacay garoonka Sayid Maxamed Cabdulle ee Kismaayo khamiistii toddobaadkii la soo dhaafay oo la sheegay in ay dhex martay israsaaseen ciidamada ilaalada garoonka iyo ilaalada murashax Cabdinaasir Seeraar shirka Garowe waxa horay u qaadacay Galmudug hadda waxa isaga baxay Jubbaland waxa muuqata inuu fashil gaaray saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa xaqiijiyay in kadib kulankii xalay ay si kulul qadka telefoonka ugu wada hadleen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland kadib markii ay madasha shirka imaan waayeen labada Axmed ee Galmudug iyo Jubbaland hogaamisa Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu diiday in dawladda Soomaaliya ama beesha caalamka ay goobjoog ka noqdaan doorashada Jubbaland waxaana madaxweynaha Puntland uu dadaal ku bixiyay arintaas iyo sida faragelin looga sameyn karo Axmedna looga qanciyo diidmada qayaxan oo la yimi Axmed Madoobe ayaa dhowr mar waxa uu dalbaday in la helo damaanad qaad dhanka beesha caalamka ah oo ay goobjoog ka noqoto qodobada lagu heshiinayo taas oo la isku maandhaafay madaxweyne Dani waxa uu aaminsanaa inuu isaga damaanad ka noqon karo wax waliba oo shirkan ka soo baxay maadaama uu isagu gogoshan fidiyay markii horeba inkastoo hadda la leeyahay waa uu fashil ku dhamaaday shirkaas Axmed Madoobe ayaana la filayaa in kulamo gaargaar ah ka bilaabo magaalada Kismaayo iyadoo madaxtooyada Jubbaland ay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ku wajahan yihiin si arinta Jubbaland meel cad looga soo saaro warar ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu doonayo murashaxiinta ka biyadiisan falsafada siyaasadeed wax ku maamulo inuu la heshiiyo maadaama dagaal siyaasadeed oo cad dawladda ay kula jirto hadda waa hagaag daawadayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta xogta wararka qodobka dibadda ayaan markana eegaynaa howlgal iska kaashadeen militariga Faransiiska iyo kuwa Mareykanka ayaa waxa lagu soo badbaadiyay laba nin oo u dhashay dalka Faransiiska nin u dhashay wadanka Mareykanka iyo mid u dhashay wadanka Koonfur Korea BBC-da qaybteeda World Service ee dibadda la hadasha ayaa warbixin ay daabacday waxa ay sheegtay in howlgalkaas wadajirka looga wada qayb qaatay ay laba askari oo ka tirsan ciidamada commandosta Faransiiska ay ku nafwaayeen inta lagu guda jiro howlgalkii Jimcihii shalay dhacay wadanka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ee Burkina Faso ayaana la sheegay in laga soo badbaadiyay 40 la haysta ee dalxiisayaasha ah kuwaas oo la sheegay in isbuuci la soo dhaafay nolol iyo geeri lagu waayay markii dablay hubaysan ay afduubteen waxa wararku ay sheegayaan in laba ka mid ah afduubayaasha gacanta lagu soo dhigay madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in dhammaan 4 qof ee la soo badbaadiyay ay nabad qabaan kuwaas oo hadda lagu hayo xarun ciidamadu ay leeyihiin dhinaca kale dawladda Mareykanka war ay soo saartay waxa lagu xaqiijiyay in la soo badbaadiyay muwaadin u dhashay wadankaasi oo gacanta lagu hayay wasiirka gaashaandhigga wadanka Faransiiska Florence Parly ayaa sheegay in howlgalka sidii loogu talagalay uu dhacay waxaana uu ka kacsiyeeyay geerida ku timid labada commando ee ciidamada gaarka ahaa ee ku waayeen howlgalkaas kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Cedric de Pont iyo waliba Alain Berton Kello labada nin ee Faransiiska u dhashay ayaa waxa ay ahaayeen macallimiin muusikada dadka bara waxaana la kala yiraahdaa Patrick Bekua iyo Laurent Lesimolas waxa laga qafaashay waqooyiga Benin toddobaadkii la soo dhaafay xilli ay safar ku jireen halka la yiraahdo Bendajari National Park gudaha daawadayaal intaasan ku soo gabagabeynayna wararka warbaahinta xogta wararka ee caalamka iyo Soomaaliya ugu waaweynaa intaan wararkan oo kale dib isku maqleyno nabadeeno